barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس dadka cadowga wax cusub maaha. run ahaantiiba horay waa ay u jireen dad ayaa loo xaqiray sababaha waxyaabaha aaminsanaayeen qiimo kasta ha lahaadeen. waxaan ula jeedaa waxaa jira xitaa dad cadow ku ah dadka qiimaha adduunyada leh oo kaliya si loo gaaro dhulkan qofkii ugu wanaagsanaa ee dul maray ciise ka bilaab ilaa Muxamed nabadgelyo dushooda Allah haya. waxaa loogu yeeri jiray kuwii waalnaa cadow ayay lahaayeen sidoo kale. waxaa lagu naanaysay saaxir iyo kii waalnaa. ilaa maanta magacyadaasi waa ay jiraan weli buugaag ayaa la qoraa iyo aflaan la soo saaro. qofka aaminsan inuusan u banbaxaynin inay dadku mucaaradaan waa qof waalan. xitaa rabbiga samaawaadka waxaa lagu mucaaraday dulmi iyo cudwaan. kuwaani waa erayadii caalimkii weynaa Imaamu Shaafici markuu u banbaxayo isaga iyo rusushiisa. cadownimada kuwaasi cadowga ah haddaba waxaa dabiici ah inay xaasidaan diintiisa kuwa cadow ah. laakiin sabab maxaa islaamka in badan looga soo horjeestaa? run ahaantii sabab ma waxaa sabab u ah muuqaalkeena iyadoo diinteennu dhabartay si gaar ah in midabka jirkaaga labadaada indhood iyo timahaagaba kaama yeelayaan inaad ka fadli badan tahay qofna. ma waxaa sabab u ah inaan u muuqano inaan ka socono isku hal dowlad? maya, aniga waxaan ka socdaa Bondi. waxaan ahay muslim sidoo kale. muslimka boos kasta uu nasab sheegan kara. qof kasta ayaa muslim noqon kara. dharkaan xirannahay inuu sabab u yahay laga yaabaa. run ahaantii dharkaan aad u wanaagsan yahay. ma waxaa sabab u ah garkayga? taa ma waxaa sabab u ah garkayga? dhammaan dadkii taariikhda saameynta ku lahaa gar ayay lahaayeen. fiiri Ibrahim, waxaan ula jeedaa Abraham Lincoln. ma waxaa sabab u ah xijaabkeeda? laakiin Maryam soo ma ahayn hooyadii Ciise calayhi salaam xijaaban iyaduna? taa ma waxaa sabab u ah qaabka aan ula dhaqanno haweenkeena? iyadoo rasuulka sallallahu calayhi wasallam yiri kanin kugu wanaagsan waa kan ugu wanaagsan la dhaqanka xaaskiisa. isagana wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam ugu wanaagsan la dhaqanka xaaskiisa. taa ma waxaa sabab u ah badnideena? laga yaabee inay sabab u tahay in nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam ahaa qof ugu badan ee ugu saameynta badnaa taariikhdan soo maray. ugu saameynta badan ugu caansan. ma waxaa sabab u ah in arintu u muuqato inaan isku dayayno inaan qof kasta islaam u bedelno? haddii aad ku kalsoon tahay inaad haysato hadiyadda caalamka ugu wanaagsan, ma jeclid miyaa dadkoo idil inay kula wadaagaan? laakiin taa waxaa la jira ma awoodo dadkoo dhan inaan bedelo xitaa haddaan isku dayo. aniga wax awooda ma hayo. awoodoo dhan waxaa iskale Allah subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala لا إكراه في الدين. اسقص بالدين تدحدي ذا ماها. ما وحى سببه أهل لغة كو هاللينا. العربي مضايقكم في إيه؟ بل سوى حن كو هاللينا إنجليش. وحنو الجدة تاني ولغة إنجليشة. صوصيدا ماها. ما وحى سببه انتظر عن عنين. انتظر حلاشة وحى أساسه إن حيوان كالغولة رغمه نحريستا نغص رئيسا. بيرتك بالله إلا ميسك انتظر. تام وحى سببه عبتانا ذا أن عبينه. إيا عبتانا ذا أن عبينين. sikastaba nolosha isku dheelitiran ayaa ugu wanaagsan. waxaan doorbidayaa taa inaan ugu qildayin qamrada. taa ma waxaa sabab u ah inaan dhibsanayno marka ay dhacaan waxyaabo annagana xumeynaya? ahaato wadankeena ama meel kale oo caalamka ka mid ah. helitaanka qof laga helayo dowlad kale taa macnaheedu maahan inuusan ahayn walaalkay ama aysan ahayn walaashay. haddii aanan isku dayin xalinta dhibaatooyinkooda yaa xalin doona? taa ma waxaa sabab u ah inaan ka aamusi weynay marka dulmigu hoggaanka hayo? maxaa yeelay mowqifka islaamku dulmiga ka taagan yahay aad ayuu u cad yahay. mar kastoo dulmi aragto isku day inaad bedesho. haddaadan awoodin ugu yaraan carabkaada hal eray. haddii aadan awoodin ugu yaraan qalbigaaga. laga yaabee inaan u jecelnahay intii loo baahnaa in ka yar. Muxamed sallallahu calayhi wasallam balse waxaana la baray inaan jeclaano jacaylka nafafkeena ka badan kana badan kan hooyooyinkeena. una malayn maayo inay suurtagal tahay weligeedba inaad hooyada u jeclaato inta laasimka wax ka badan. taariikhdiisa ayaan ka akhriyay masaadir badan. wax kaloon oran kara ma leh waan jeclahay. markastoon wax dheeraada kasii ogaado aad ayaan usii jeclaadaa. ukaadi waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay qaabka qaarka kale ula dhaqmo. haa taa waxaa laga yaabaa inay qaladkeena tahay. laga yaabaa inaan idinka yeelno kuwa aaminsan in islaamka loo diray koox dadka ka mid oo dhammaystiran, iyadoo islaamku u yimid dhab ahaantii inuu dadka dhammaystiro. haa islaamku wuu dhammaystiran yahay. Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuu dhammaystirnaa, laakiin muslimiintu sidaa maaha. haddaba aniga waddadiisaan idinkugu yeerayaa waddada Ciise, Muuse, إبراهيم وضد الله سبحانه وتعالى. الله وجو حقيقة إسلامك ما أها واحد السجولية هاي أما إياه لا تلفزيون كراضيها وجو حقيقة دي سكامل سادرت ربط أصلك وحير حاسب وحبة ظن برا. So start reading today. Start reading today. Start reading today. Start reading today. Start reading today.